intii lagu guda jiray boqortooyada dhexe ee Masar 2040 ilaa iyo 1940 ka hor taariikhaynta dhalashada Nabi Ciise xiriirka ilbaxnimada ee Nubiyada Kerma ayaa isku dhafnaa dhab ahaantii waxaa jiray iska horimaadyo hubeysan sida in ay Masar ay ku darsatay qaar ka mid ah dhulalka Nubiya laakiin waxaa sidoo kale jiray waqtiyo ganacsi iyo iskaashi nabadeed xitaa waxaa daliil u ahaa isgoorsiga iyo saaxiibtinimada labada dhaqan Masar waxa ay had iyo jeer alla xiiseen jirtay dhulalka Nubiyada hoose sababtoo ah waxa ay ahayd albaab laga galo ganacsiga Nubiyada sare iyo qaybaha qalaad ee Afrika faraacintii boqortooyadii dhexe waxa ay isku dayeen in ay gobolka ku qabsadaan dagaal iyo diblomaasiyad labadaba markii hore boqortooyadii Kerma waxa loo maleynayay inay ka mid tahay dawladihii yaryar ee qabsaday dooxada Niilka waagii boqortooyadii dhexe si kastaba ahaatee natiijooyinka kadib waxa ay cadeeyeen in Kerma ay ku faafisay saameynteeda dhulal aad u weyn magaalada Kerma oo ku taal Suudaanta maanta waxa loo maleynayay inay tahay goobta kaliya ee qadiimiga ah ee dhaqanka Kerma sida sahminta ay ku sii socotay koonfurta dhanka xuduudda Masar ay la wadaagto gobolada Nubiya culimada ayaa la yaabay inay ogaadaan degsiimooyinka Kerma iyo qabuuraha baaxadda dhulka Kerma ayaa cadeynaya in ilbaxnimadani ay ahayd awood siyaasadeed oo saameyn ku leh gobolka la yaab ma laha in ay dani Masar ay ugu jirtay labaduba waxa ay ahaayeen xulafo macquul ah ama cadow suurtagal ah waxayna awood u lahaayeen inay la tartamaan awoodda boqortooyada xilligaasi ka arrimin jirtay Masar ama fircoonkii saddexaad boqortooyadii Kerma waxa ay xitaa Masriyiinta ku dhiirigelisay inay dhisaan dhowr dhufays oo ku teedsan xuduudkooda koonfureed tusaale ahaan kuwii Buuhen iyo Quban ee gobolka Niilka dhexe in kuwani loo isticmaalay difaac iyo in kale wali laguma xusin taariikhda waxaa xiiso leh in qalcadaha Masar sidoo kale loo isticmaali jiray sidii xarumo ganacsi iyo dhaqan halkaasi oo ay dadka Masaarida iyo Nubiya labaduba ay ku lug lahaayeen ganacsiyo tani waxa ay u badan tahay inay sabab u tahay xaqiiqda ah in dariiqyada dahabka ah ee ka soo baxa gobolada Nubiyada ee koonfurta ay yaalaan kuwaas oo ku yaala xuduudka labada boqortooyo Masar waxa ay u baahnayd dahabka si uu sii socdo ganacsigeeda siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu sugi karona waxa ka mid ahaa nabadda taariikhyahanada qaar ayaa xitaa soo jeediyay in ka macaashida dahabka Nubiyada hoose ee Masar ay ahayd mid tartiib ah iyo taliyayaashii Kerma ayaa u hoggaansanayeen arrintani qaar kale waxa ay soo jeedeen inay ahayd awoodda kor u kaca dabaqada dhexe ee hodanka ah ee Kerma taas oo ku qasabtay Masar inay u soo dirto safaro military gobolka xiriirka u dhaxeeya Masar iyo Nubiya waxa uu ahaa mid joogto ah waxaana muuqatay saameynta ay labada dhaqan ku yeesheen midba midka kale labada hogaamiye ee Masaarida iyo Nubiyada Kerma waxa ay adeegsadeen calaamado isku mid ah si ay u qeexaan boosaskooda laakiin waxa ay ahayd xilligii boqortooyada cusbeyd taas oo muujisay in labada dhaqan ay noqdeen kuwo aan la kala saari karin iyada oo ay qoraalada boqortooyada cusub ee hore ay u tixraaceen gobolada Nubiyada sida The City Land of the Pole sida dadka halkaasi ku caan ahaa xirfadahooda qaansada waxa ay ahayd sanadihii Kerma ay hoos u dhacday markii ugu horeysay ay Kuush ay sii daweer go'aysay dadka Kerma waxa ay u badan tahay inay ku hadlaan luqadda Kushitiga waxaana la rumaysan yahay inay ahaayeen asaasayaashii ugu horeeyay ee boqortooyada Kuush ama halkii ay ka soo bilaabatay ilbaxnimada Kushitiska ee Kerma waxa ay had iyo jeer ala Kushitiska ahaayeen kuwo dagaal la gali jiray hoggaanadii isku daygii Masar ee xukunkii Fircoon Kamosi qoraalada ay ka tageen labadii Fircoon ayaa ah isha ugu horeysa ee qoran taas oo boqortooyada Kerma loogu yeero Kuush halkii laga oran lahaa The City lama oga sida markii hore boqortooyada Kuush ay magaceeda ku heshay iyadoo magaceeda hore uu u ahaan jiray The City Masaarida ayaa ahaa kuwo had iyo jeer ala u yaqaanay The City taas oo imika laga heli karo taariikhda dhiganayaasha laakiin lama garanayo waxa magaca asalka ah ee Nubiya uu ahaa waqtiyadii hore waxa laga yaabaa in had iyo jeer ay ahayd Kuush ama nooc ka mid ah magacani
masarna waxa ay bilowday inay isticmaasho magaceeda hooyo markii ay aqoonsatay muhiimadda gobolka waqooyi ee Nubia oo xuduud la leh Masar waxaa loo yaqaanaa Wawat ama Nubiyada hoose halka magaca kale ee gobolka uu ahaa Taneshi. tani waxa ay la mid tahay ama Ethiopia taas oo habfasirkeeda ay u dhiganto dhulkii wajiga gubay. marka Masaarida iyo Greega labaduba waxa ay aqoonsadeen dadka asaliga ah ee Nubia, laakiin lama hubo haddii ay magacyadan tixraacayaan dhammaan Nubia ama qaybo gaar ah oo kaliya. ku darida Masar ee dhulalka Nubiyada hoose waa lagu guuleystay, waxa ayna sii waday inay sii qabsato dhul ka fog koonfurta oo hoos yimaada Fircoonkii Amenhotep ee ka arriminayay Masar 1525 ilaa 1504 iyo Fircoonkii kale ee la oran jiray Tutmosis ama Tutmosa 1506 ilaa 1494 ka hor dhalashada sanad taariikheedka Nabi Ciise. waxa ay qabsadeen Saaya iyo Bagdugmish, labada xarun ee ugu weyn ee ilbaxnimada Kerma marka laga reebo magaalada. ugu dambeyntiina Masar waxa ay gaartay goobaha dahabka laga qoday ee Saxaraha Bari, halkaas oo ay wadada Crossco ay kaga beegan tahay webiga Niil. wadada Crossco waxa ay ahayd wado qadiimi ah taas oo marta dhulka oo ay isticmaali jireen gaadiidleyda ganacsiga isaga kala gooshaya Masar iyo Nubia si ay uga gudbaan biyaha aan la dhaafin ee ku beegan biyo dhaca labaad, saddexaad iyo afaraad ee webiga Niil. intii lagu gudi jiray xukunkii Tutmosis ee Fircoonkii saddexaad 1479 ilaa 1425 ka hor sanad taariikheedka dhalashada Nabi Ciise, si buuxda ayaa loo maamulay Nubia. tani sidoo kale waxa ay ahayd dhul dahabi ah, sidaas darteedna waxay ahayd mid aad muhiim u ahayd Masar, halkaas oo ay ku taalo buurta yar ee loo garan og yahay Jebel Barkal. Tutmosis waxa uu aasaasay magaalada Nabata ee koonfurta Masar. imtixaanaha barnaamijkani aynu ku dul istaageen oo taariikhaynta boqortooyadii Kuush halkan ayaan maanta ku soo gabagabeynayaa. inta aynu maalinta xigta iyo qaybta afraad ee imtixaanaha aynu kaga kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa maqal dambe oo xiiso leh.